داعي مختارو بادي دا ميشهد كرادين يسيد كاما جرته والله قوائسا دين تسف عنو فهن دين تادا مرتنا هكا نقن عدنا هاو دبا فدين هبلايا تري هبل يقديش بايرنا هاو نقن حق أحق أن يتبع إن الرعا سقا مدن ميشو دونه هكا قيمات واحد كلا حكومة يسيد واتشن إيا النار مسائشان علوس aad ku dhiiranaysidna ka joog iyo muranadan tirada badan waayo waxyaalahan qalbiga madoobeeyaan gaal adoo jeclaaday baadan diinta ka bixi karin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha badbaado ku soo dhawaada muuqaalka kan ilaahay haydan barakeeye muuqaalkani waxaan rabaa arrin su'aalo ay iga soo weydiiyeen walaalaha nagu xiran qaar ka mid ah inaan uga jawaabo si babliga arrintaas oo ku tacalluqda walaalka lagu magacaabo daaci mukhtaar arrintaasi laba qaybood ay khusaysaa mid waxa weeye aayad quraanka ka mid ah oo walaalka daaci mukhtaar iyo muslimiin badan oo dhalinyaro u badan oo fahamka diinta ay ka haystaan oo gaaban yahay ay ku imtixaaman yihiin bimacnaa ay fahamkii ku khaldamay ku qalloocday sida annagaba ama anigayga in la hadlaya saban hore oo igu qalloocday waayo waan garanayaa nin wadada maray baan ahay marka taasina aan saxaan rabaa iyo midda labaad oo ah sujuudu shukriga kubadda loo sujuudayo qofku markuu gool dhaliyo iyo sujuudu shukri xukunkeeda iyo meelaha ay imaataan rabaa wax yar inaan ka tilmaamo anu qofna dalaacayn mayo dhammaan waxaan leeyahay ilaahay soo hanuuniyo وأنا كم بتحيب آمين يا رب العالمين داعي مختار هرت وحويه نندل يرى والدلال يدين تسجعل لكن حقيقة مركا لقاها الله فهم ساء قطر أو الله هاي دين الإسلام هي مسائش غار انت بدنا وحن أركان مسائش ووين إنه انكها الله مسائش خطرت اللي يقانو دينجرك أما مسائل أباهن بحث بدن للعيا بدن لقى فيريو شروط تربضا أباهن مسائل عنده كرنين كله يمرحي برشاد علمك يبريديسا أيا إسكا إلالين يان كدك دقين أيا ولال كان نحمو قورانيا مركا نستيحا ندريا انت أنا لبدا سؤال جوابته دويما نستيحا دو حويه إلهي كوغو مكالفين أو إلهي كو قبصان ميا كوغونا حسابين ميا وحيالها قار دحورديسيد waxaad kala xukumaysid waa janno iyo naar arrin lagu dhiiradana ma aha waracnimo iyo kasriigasho badan ka sameeysan la doonaya insha Allah taala midda ugu horeysa masalada waa sujuudu shukriga kubadda in markuu qofku gool dhaliyo uu sujuudo shukran lillahi ma dhici kartaa ha way dhici kartaa qofka haduu muslim yahay masaa'isha meesha u socdaan in laga leexiyana ma ahan oo la qalloociyo magacaysan masaladu lahayna in la siiyana sax maahan asaga waxa kamid ah sida uu cabirayay inuu yiraahdo kubadda ma loo sujuudi karaa تعبير خلط ويكاس qof muslima oo ciyaaryahan muslima gool dhaliyay oo u hardamayay oo u dagaalamay oo jihaaday gool maanta dhan dhali islaha mar nasiibka alla ku aadiyo u dhaliyay sujuudu shukri mu samayn karaa way qaabka loo cabiri karayo waxa la midka horta sujuudu shukri maxay tahay way marka hore inaynu taariifino way sujuudu shukri waxa weeye waa shay uu samaynayo oo sujuud uu samaynayo qofku marka ilaahay wuxuu ku farxo u siiyo qofku nimco wuxuu ku farxo qofku markuu helo oo sugayay oo meel u fadhiyo oo xisaabaad isku dhufanayay ama dhibaato ilaahay uu dhinac ka marsiiyo meel baad maraysay shil gaari baad ka badbaaday alxamdulillah waa sujuud shukr waa la dhici kartaa mid cadow wahay oo weynaayo islaamka iyo muslimiinta dib ku hayay oo ilaahay meel daran ka tuuray sujuudi kartaa sida Abu Bakar buu sujuuday markii Musaylimatul Kadhaab dilkiisa loo soo sheegay وهكذا wanaag aad heshay waxaad ku faraxday oo aad heshay nimca iyo dib ilaahay ka rafacay ama musiibo ilaahay ka badbaadiyay allo sujuuda kubaddu markuu soo gelaysa marka adiga ay diiday qofkan wuxuu soo tababartay waa kubad xirfadiisu waa kubad koob raba inuu qaado harjid buu ugu jiraa guul buu raba iyo magac inuu soo hoyo dunidan maanta waa magac iyo maamuus dalkayga dhibaato ka rabtaan waligiis inuu aado googlaha bal ku qor luqadda rabtid ku qor Soomaaliya balaayo hub wadatay iyo dad dhimanaya iyo geec baad sawiraha goolaha kaaga soo baxay masaasa magac xumadaas aan rabnaa inaan wadno mase waxaan rabnaa inaan dhahno Soomaaliya goobta caafimaad baa laga sameeyay halka wada laga sameeyay intaasoo masaajid oo qurux badan baa ka samaysan madaaris cilmiga waa kala socdaa wax ku dhintay malakulmood caadi iskaga dhintay waxa qof dilay ama qof kale sababsaday ayaa laga waayay
waxbarashadii heerkaasi maraysaa tartamadii qur-aankii sidoo kale haddaba qur-aanka maasha allah laakiin meelo kale inta badan ka imaadaan wadamo kale iyagoo jinsiyadooda sita soomaaliya maaragtay ciyaaryahaneedii guul gaareen oo dalal badan ka raayeen koobka afrika qaadeen in googlo saa qoor dunida kala arto Soomaaliya maxay ahayd miyaa rabnaa mase in rafaad inta la arko meesha halis waay la yiraahdo doonay qofkan xirfadan uu soo bartay waxaan uu soo harjaday gool inuu dhaliya guul oo asaga nimco ah laana waa farxad oo wuxuu raadinayay waay marka nimcadi ma noqonaysaa adinka idin daay qofka aqalka uu fahmaya mid kale sujuudu shukrigaas oo qofka goolka dhaliyay waaba dacwo aan dhihi karaaba oo qofka muslimka sameeyay oo dadka muslimiinta kuwa jisaara inaysan ahayn ayaaba tusaale u tusaysaa dadka kala tusay laana meesha lagu ciyaarayo caalam badan baa isku imaanaya kala luqada kala diima kala dhaqana kala lahjada kala midaba isku imaanay waaba fariin baan dhihi karaaba hadduu soo qofku sameeyna dama gelinba laakiin islaamnimo iyo gaalnimo lagu cabiro miisaanka noocan la saaro waxa weeye arrimihii oo la gaarsiinay meelaysa gaarsiisnayn magacyo islaahayna loo bixinayo taasi waa mid labaad waxay ku cilayaan dadka qaar waxay dhahan sujuudu shukri tahara loo baahan yahay qofkaana ma tahara qababa cawriisa laga yaabaa qayb ka badan banaanta horta inay tahara u baahan tahay sujuudu shukri waa meel culimadu isku maandhaafeen nas cad oo tilmaamaya inay sujuudu shukri u baahan tahay tahara iyo weesana ma jiro علماء بدنا waxay qabaan sujuudu shukri inaysan u baahnayn yaani wax weesa ay tahaaro uma baahna xitaa haweenadu caado qabta hadii war uu soo gaaro farxad leh way sujuudi kartaa tahaaro uma baahna bay dhigay culimo badan qaba hatta ibn al-qayyim al-jawziyya caalimka weynaba kamida abu al-abbas al-harrani ibn taymiyyah kamida ilaahu naxariiste dadkii dhawaa waxa kamida shawkani sancaani ba kamida iyo culimo badan hatta ibn baaz ilaahu aw naxariiste ibn uthaymin yani culimo waaweyn oo miisaan sharciga islaamka iyo fiqh islaamka kula qaba iyo kuwa horaba laakiin inta culimada madaahibtu ay u badan yihiin oo jumhuurtu waxay leeyihiin tahaara u baahan tahay weeso oo macnaha salaadii bay soo hoosgalaysaa ilaahayna salaad ma aqbalo bila tahaara oo weeso uu soo qofku qabin taasay soo hoosgalaysaa bay dhaheen culimada kale waxay leeyahay maya salaadi guud ahaan loo jeedaa laakiin sujuud gaar oo sujuudu shukri la yiraahdo weeytan rasuulkuna ma amrin dadkana ma barin saxaabadiisana ma barin weesaad u baahan tihiin موصده marka waa arin macnaha waasica way kana hada qaatid dhimana kana hada qaatid dhimana meeshu iimaan iyo islaamnimo kuma xirna taas way ujeedada inaan idin sheego taasi xagga inoo dhig tan kale aan iimaanna marka aayadu miisaanka lagu miisaamay waxa weeye qof kasta oo gaal jeclaada diinta islaamka waa ka baxay sa in loo idlaaqo waa dambi aad iyo aad u weyn waana aan kullu go'sanayn way fahamkeena qaasir aha aayadu waxa weeye إلهي وحول لي سورة المائدة وكل لي آيات كنتني يكوبات أذنك وصبحين كتاب مصحفك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي وحول لي كون يا إيمانك له كريستان يهود أولياء يقعلها كدقننا ayagoon baa isku waxaas qofka ka dhigta ayagu ka mid yahay ilaahay kuwa dhaalimiinta ma hanuuniyo aayadan waa aayadaha ummad badan ay ku jabtay dhalinyaro badan ay ku dhumeen taas ay ka dhaliyeen in ummad islaama ay diinta ka saaraan ummad muslima ay dhigooda xalaalsadaan ayoo ku dhisaya fahamkaasi khaldan oo walaalkaan uu meesha la soo fadhiyo iyo walaalo kaleba gaal jacaylnimadu maxay tahay taasaa qeexid u baahan لأن إلهي آياته وحكوت المامي بعضهم أولياء بعض وفي رصدا قرآن كأساقا إسفسريس العلية لكن هذا جيس كان قادت سيدا واغروا بانو سبين جرني آياتها أرماها كهالله أمبانو أود ساري جرني دينتي نحريس تيدي يفهم كيدي لا وكقور سبحانك يا رب إلهي من نبت بادي مركزات درتي بحرم نطقين نبت بادنا إلهي دينكيس إلهي وحيي بعضهم أولياء بعض هذا هو في رصدا كريستانka yahuuda ayaga gacal isku ah aayada kale ilaahay wuxuu noo sheegay inaysan is arki karin ba hadaba fiirsada inay cadow isu yihiin kiristaanka yahuudu ilaahay aayada badan noogu sheegay aayadan waxa ilaahay wuxuu leeyahay ayaga gacal isku ah mal farqo adinka idin tahay yaani quraanku faham dheer u baahan yahay aayadaha ayaga isfasiro la isku cilciliyaa laakiin haddaan daahirka in badan u qaadano tobanaan aayadood baan iska horkeenaynaa madaxas ugu dhufanayna saxna sida ma ilaahay muxuu ka warramaya إلهي وحو كورميا قعل لماذي قلبي بو إلهي كورميا سلاسانا صح يعني قالك
ha u jeclaan ka gaal ahaan inuu ilaahay dafiray rusushiisa dafiray macnaha diintiisaas ee islaamka ka soo horjeeda inaad ku jeclaatid inuu gaal yahay kaafir billaahi inuu yahay inaad ku jeclaatid sidaas ayaa dembi ah oo gaalnimo ah hadoo fiirso waana midda qalbiga waxaad jeclaatayba gaalada inay ayagu raayaan iyo diintooda diinta islaamka laga takhaluso yahuudu rayso kristaanku raayo buudigu raayo diimahaas kuwaas fiican baad aaminsan tahayo maxabada laga hadlayo waa taas waay maxabada qalbiga waay mid camala ma ahan aayada waxa laga dhaliyay in la yiraahdo haddii ciidan islaam muslimiin ah ciidan gaala ay soo raacaan oo cid kale ay la dirinayaan walow muslim baa ha aadeen ciidankaasi diinta waa ka bixi no waxa laga yaabaa inay dhici karto in yani fusaaq yihiin oo dembi ku dhaceen kabiira oo diintiisa ka bixin qalbigooda iyo maxabada qalbigooda la fiirinaya ee camalkan lama fiirinayo lianna inama alacmaalu binniyat qof muslim oo tukanaya miyaa jecel qof gaala ama diin kirista ama diin gaala inay ka guulaysato diinta islaamka oo diinta islaamka la duleeyo qof islaam sheegay ma dhahay no adduunya xambaari karto kursi jacayl sida nidaamyada Soomaaliyeed ciidamay soo kaxaysan jireen kursiga jacaylkiisa laakiin diintaan iyo dadkaan u wato diintooda ma jecel mana rabo inay taageeraan oo kursigiisu celiyaan adduun jecel waa qof dambi ku dhacay waa kabiira min al-kabaa'ir way noqon kartaa faasiqnimo way noqon kartaa masaaciinsi kala duwaneed ee wadooyinkaasi kala gelaysa ee isla markii diintu ka baxay ma aha no gaal adoo jeclaaday baadan diinta ka bixi karin sababtana ku sheegay cadayn baa ku siinaya kuguma badinayo idagayso qofka muslimka ah inay tan qalbi tahay oo aayadaha kala fasirayaan baan ku sheegaya waalidkaaba ka soo qaad ilaahay naguma keenay gaala sida waagi hore islaamku ku bilowga ilmihi ama qofkii la dhalay baa muslima waalidkiina waa gaal waalidkaaba gaala yuhuud kirista ama dabku caabuda ama waa mushrik ba waalidka ka soo qaad ilaahay quraanku wuxuu nagu amray adduunyada inaynu wanaag kula saaxiibno laakiin shirkigu in isnuugu yeerin aan ka yeelin oo fiirsada waalidkaaba gaala ka soo qaad ina waalidka jeclaatid oo ku dhalay oo ihsaan sameeysid waa waajib walaw muslim ahaane idan jacaylka muxuu yahay ma waalidkaygan kiristaankan ama shirkigan uu wato miyaan ku jeclaaday mise ka waalid ahaan inuu dhalay ihsaan igu leeyahay baarinimo igu leeyahay ilaahay yiri adduunka wanaag kula dhaqan miyaan ugu la saaxiibay mise inuu mushrik iyo muslim ahaan iyo diintiisaan ku jeclaaday ما يدينتي سكو ما جعلنا كوالد أهان وي مد با معروف كوسميو ونا كوسميو لعب كوسيو غوري كوسيو مسلم ما أهان حتى إلهي كابا المري أدونك هو بركاي وابا جعلات بي كما هذا جعلان دينتيسه لكن إحسان كوسميات كو جعلات بي قالوا بيسا نو فهم ديري وباهين آيادها يا ظاهر كودا وكو اللغو خلدمي أفكار قد سنة دادك أي أصابت دينا عكالي إلهي قرآن كيسوح نوغو بنيي عدينو رق مسلمين النهي inaynu guursan karno haweenka kale ee kristaanka yahuud ahlu kitaabka haweeney yahuud ama haweeney kristaana inuu nin muslima guursan karo ba ilaahay quraanka ku baneeyay صح hada ilaahay ku baneeyay soo kuma baneyn okay nin iyo naagti isqaba maxaa dhexmara marka laabud uu jeclaan waxaaskiisii marka waxa leena tii kristaanka ama yahuuda qubuntu jeclaa diintu waa ka baxmay leena muxuu jeclaaday way wuxuu jeclaaday waxaaskiisii wuu qabaa gogol ba dhexmaraysa waxbay wada cunayaan guriga kooda nooliyeen oo jecel yahay laabud nin xaaskiis waa isjeceliyeen wada nool laabud jacayl ba dhexmaray jacaylkaas muxuu yahay jacayl waxa weeye waxa dhexmaraya noloshan qoyseed khusaysa waa jacayl diin khusaya ma aha idan ilaahay aayadan wuxuu ku sheegay waa jacayl diin khusaya waxa lagu gaalo waxa gaalnimada waa jacayl diin khusaya iyo qalbi iyo maxaba niyadeed waay ma ahan dhaqanka yani waxyaalaha kale ee khuseeya waxyaalaha kale ee khuseeya marbay dami noqon karaan marbay mubaax noqon karaan sida nin xaaskiisa aysan muslim ahayn oo uu qabo uu jecel yahay xaaskiisa uu amaanaya suuqu raaxaya uu la nool yahay uu biilaya waajib bay ku tahay inuu xanaaneeyo haddana muslimaan ka waran waana jecel yahay maxaa leena diintu ka baxay no maxabadaas maxabad diimeed ma aha aayada marka meesha u socoto labada cadayn kugu filan meesha u socoto faham hadda koran waxaan soo xasuustay waagan bilowga diinta ku ahayn quraanka oo 2006 ma qani shantii meelahaas ahayd baa waxa dhacday wallahi waa xasuusta qisadaas yar dhalinyaro oo saaxiibanaay oo isku dugsi ku soo quraan baranay oo alifkiisa soo bilawnay baa maalin wada sheekaysanayna baa waxaan soo qaatay aayad ku jirta suuratu at-tawbah
aayaddaas ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum fa ulaa'ika hum alzaalimuun. aayaddii ma akhriyay ninkii dhallinyaradaha wuxuu ila soo booday aabbahabaa gaal aad soo udaamiya. wallahi hadalka waa xasuustaa. aayadahaas iyo kuwa la midkama saa u xiisayn jirnay diinta kale iyo aayad kale waa ilowna. yani aayaddu waxay leedahay aabbayaashiin iyo walaalihiin awliyaha ka dhiganina hadday gaalnimada jeclaadeen oo gaalnimada ay raaceen iimaanka ay ka doorteen qofkii ka dhigta ayagu ka mid yahay baa leeyahay waa dhaalimiin. marka macnaha fasirkaasi dhalinyaro badan maxay ku fasirayaan aabbahoodii aan fikirkooda qabin waalidkoodii aan fikirkooda qabin inay dhahaan waa waalid muslim ma qarkii gaalnimadu taagan yahay. marka wuxuu yidhi ma aabbahay baa soo wadaa waa gaal aad soo wadaa soo maaha. marka waa isku yaxyaxay taas ma fahamsanay laakiin aayadu ma iska wada dhade daahirkaas iska daliilsanayna sidaas ay u soo dhacday. marka waxaan leeyahay daci muktaarow baadida meeshaad ka raadinaysid kaama jirto waad lu go-aysaa. diinta si fiican u fahan qof kastoo fikirkaa qaba iyo arrimaha noocaasna si fiican diinta u fahmo. diintaada martina ha ka noqon cidna ha u daba fadhin heblaayaa tiriyo hebel iyo gidhiish baa yirina ha u noqon. xaqu waa xaq axaqu an yutabac in la raaca asagaa mudan meeshuu doona ha kaaga yimaado. qur-aankan iyo diintan faham bay u baahanta. markaad qur-aanka rabto inaad fahamtid waxaa la rabaa aayadaha dham inaad wada garanaysid. aayadan aayadee fasirtay maxaa laga wadaa fasirka culimada aad kaashan kartid luqadii aad kaashan kartid dhaqankii waagaa qur-aanku soo degayay iyo wixii jiray aad fahmi kartid. aayadan siyaaqeeda iyo lixaaqeeda yani waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inaad fahmi kartid sababtay kusoo degtay suuraday ka mid tahay ma suurad makiyay ka mid tahay ma suurad madaniyay ka mid tahay. wax badan baa fahankaaga baahan oo adigu aad sahlanaysid. masaa-ishan culculus aad ku dhiiranaysidna ka joogo ka istaag stop iyo muranadan tirada badan waayo waxyaalahan qalbigay madoobeeyaan. intaasaan kula talinaya walaal wax kasta oo aad maqashid fiiri ilaahay soo ma rumaysid qof iyo muuminka wax kastoo aad adduunka aad ka maqashid maanta isla markaa ha cabin ha rumaysan ha aaminin ilaa aad xaqiiqadaba dul istaagaysid inta tabartaaya isku tay insha allahu tacaala. intaasaan idinla jeclaystay walaalayaal inaan ku baraarujiyo labada masalo. aayadaas keligeed maahan aayado badan baa lagu jabay oo fahamka dadka ay khaldeen. aayadan waxay ka mid tahay aayadaha walaal daaci mukhtaar oo ku dhex kufay fahamkeedina uu ka qalloocday. waayo fahamkan wuxuu keenayaa in hadhow xitaa adiga laftirkaada aad isu aragtid inaadan muslim ba ahayn sida kuwii xaramka istaagay xaramka oo la xajinayo dadka malaayiin dawaafayso ayaa laba takfiir ah kuwan kaligood islaam ah oo kaligood muslima wada sheekaysteen markaas dheh waxaas wada dawaafayaday hal waxba kama aqbalayo aniga adiga un baa dunida maanta muslimka ah ama xaramka wax imaaday muslim kii kala caqliga ilaahay ku soo duriyay wuxuu yiri waali waay waxa uu malaayiin dawaafaya aniga asaga ma adaa muslimka ah waa kaaga tagay biiro islaamnimadaada aad sheeganaysa dadkana raacay orodka la tagbi kaliya waxa wadatay aad abuurtaa qacan ku ramiska waa musiibo. waxa kale musiibo ah marka quraankan fahamkaadan gaaman la dhex gashid aayadihii aad iska horkeentid ama aayadihii macna saxana aan ahayn aad u qaadatid. hadda koor laba takfiira shiray baa way iswareysteen markaasay waxay dhaheen mid baa wuxuu kale ku yiri niyo inaan gaal ahay baa maanta soo ogaaday yiri soo war maxaad ku ogaatay waxaan ku ogaaday wiila aayadda fi suurati tawba ee ilaahay yiri inama an-nasii'u ziyadatun fil kufr inama an-nasii'u nisyaanka ma laga wadaa hilmaanka. marka waxay ka dhigeen hilmaanka wax hilmaamaysid waa gaalnimo asiyaadsatay marka wax waa iloona Soomaha dhamaanteed marka anna wax waa ilooba yiri marka iloogu waaba gaalnimo qofka haduu wax ilooba waaba gaaloobayba. inama an-nasii'u ziyadatun fil kufr toos buu quraanka fahamkiisa gaabna oo la dhex galay sidaasna sax maahan nisyaanki maahan ee Quraysh buu Ilaahay ka warramay. Quraysh waxay sameeyeen bilaha xurmada leh maalintay rabaan magaca inta ka qaadaan mid kala siinayaan bishaas waxay banaysanayaan wixii la xaraam yeelay yani dib bay u dhigayaan marna hore way soo dhigayaan bilihii bay magacyada u kala bedbedelanayaan. walidaalka nabigu waa asaga markii uu khudbaynayay sallallahu alayhi wasallam hajjatul wadaa uu yiri yani sanadkii sida Ilaahay ugu talagalay ku soo wareegay biluhu waa 12 afar xurmada kamid sida loogu talagalay magacyadooda. waagi hore Quraysh way bedbedeli jirtay qabiilka markuu rabo qabiilka inuu ka soo
aarsado ama dhib ku sameeyo oo bilihii xurmada ama la dagaalami jirin ay isku soo aadaan magaca laga qaadaya mid damba magaca la siinaya dhiiga la banaysanaya marka ilaahay wuxuu yiri inama nasii'u ziyadatun fil kufri bishaan hadba mid dabdhigayaan mid ay soo hormarinayaan waa gaalnimada soo siyaasadeen way helmaan ma aha macnaha fahamku markuu ka gaabto adigu aad is aamintid inaad tahay wakiilka ilaahay dhulka jooga waa masaa'ib aad u waaweyn waa xamaanta dadkayga haysta oo dadkayga dhibaatada loogu geysanayo oo in dadka la laayo la iska laayo maanta iyo wax walba la iska laayo fikradaas keenay marka in adeer inta ay fikradaas kula fogaan baxthi badan samee istaji masaa'ishan ehelkeeda ma tihid okaadi cagta u dhig ayaan ku leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantiin Allah idin xafido horay u socda barakallahu fiikum